kusoo dhawaada daawadayaal barnaamijkeenii taariikhaha ahaa ee aynu kusoo qaadan jirnay sooyaalka raggii iyo dumarkii ugu xumaa ee soo maray taariikhda caalamka. meel kasta oo aad joogtaan iyo xaalad kasta oo aad ku sugan tihiinba, ugu horreynta waxa aan idinku salaamayaa salaanteenna islaamka, assalaamu calaykum. marlabaadka waxaynu eegan tegi doonaa qaaradda Afrika, waxaana aynu si gaar ah u booqan doonaa jasiiradda Madagascar oo 250 mayl ama 400 oo kiiloomitir u jirta xeebaha bari ee qaaradda Afrika. waxa aynu dib u guuri doonaa ku dhawaad 230 sano ka hor, innaga oo ka warrami doona xilligaas sida ay ahayd jasiiradda Madagascar oo ah jasiiradda afraad ee caalamka ugu weyn iyo waayaha boqortooyadii ka talin jirtay waqtiga. Andarian oo ah aabbe sabool ah, qoyskiisuna ay dan yar yihiin, ayaa helay xog muhiim ah oo wax weyn ka beddeshay nolosha qoyskiisa iyo taariikhda waddankiisaba. waxaana uu odaygan caydhaayi u soo orday dhankii boqorka isagoo oo raba in uu la wadaago macluumaadka uu helay, waana ay u suurto gashay in uu la kulmo boqorkii. kadibna waxa uu u sheegay sirtii adkeyd ee uu hayay, taas oo ahayd in la diyaariyey shirqool weyn oo boqorka lagu dilaayo. isaga oo boqorku ka duulayo xogtii la siiyey ayaa uu si adag uga taxadiray mu'aamaradii, waxaana uu ku guulaystay inuu ka badbaado shirqoolkii loo maleegay. Andarian Marina oo ahaa boqorkii waqtigaas ka talinayay waddankaasi waxa uu ka fekeray abaalgudka uu u qalmo in la siiyo ninka badbaadiyey naftiisa. muddo ayaa uu boqorku keligii showrayay oo ka arrinsanayay kana baaraan degayay waxa uu ugu mahad celin doono. aakhirkiina waxa uu gaadhay qaraar kama dambays ah. qaraar keliya ma uusan gaadhine waxa uu gaadhay go'aamo istabayaala oo ay wacnaan lahayd in aanu ku dhiiran amaba uu ugu yaraan kala reebo. haddii uu boqorkani ogaan lahaa midhaha ka dhalanayo go'aamadiisaasi in ay yihiin baabiinta qoyskiisa iyo shacabkiisa, waxaa suurtagal ahaan lahayd odaygan saboolka ah iyo qoyskiisaba in uu gumaado oo uu dabargooyo, mase noqon oo maqaadirta ayaan sidaa u dhignayn. waxa uu boqorkani go'aamiyey in qoyska boqortooyadu ay la xidhiidaan odaygan saboolka ah, waxaana uu inankiisii oo la odhan jiray raadaamkii koowaad uu u guuriyey Ranofilona oo ahayd gabadh uu odaygaasi dhalay sanadii 1778kiina caalamka kusoo biirtay. waxa kale oo uu ka dhigay marwada koowaad ee inankiisa, maadaama oo uu inankiisu 12 haweena uu qabay. intaas kuma uusan ekayne go'aan kale ayaa uu boqorku soo saaray. waxa uu shaaciyey haddii uu dhinto in uu xilka uga dambayn doono inankiisa Raadaan. waxa kale oo uu qalinka ku duugay bulshadana u sheegay marka uu dhinto inankiisa Raadaanna in uu xilka boqornimada qaban doono qofka ugu horreeya ee ay dhasho Ranofilona, nin iyo naagta uu doonaba ha ahaatee. sidaas ayay noqotay abaalgudkii boqorku. waxaa si dhaqso ah isku beddeshay noloshii qoyska saboolka ahaa, sidoo kalena waxa ay saameyn weyn ku yeelatay nolosha bulshadii waddankaas. sannaduhu waxa ay socdaanba waxaa geeriyooday boqorkii, xilkiina waxaa la wareegay raadaamkii koowaad oo isna 18 sano xilka hayay kadibna dhintay. sidii uu ahaa go'aankii boqorkii weynaa, waxa xilka xaq u lahaa inuu la wareego qofka ugu horreeya ee ay dhasho Ranofilona, laakiin nasiib darro wax ubad ah ma aysan dhalin muddadii la qabay. tallaabadani waxa ay dhalisay in qoyskii boqortooyadu tashadaan, waxaana markii ay shuruucdoodii eegeen xaq u yeeshay inuu boqor noqdo wiil ay dhashay raadaantii dhintay walaashii. laakiin Ranofilona intii qoysku shirayeen iyadu qorshe kale ayaa ay degaysay. madaxdii ciidamada, qaar ka mid ah wasiiradii iyo madaxweyntii dawladda ayay la showrtay, waxaana ay iclaamisay in ay iyadu tahay boqoradii rasmiga ahayd ee waddankaas, iyada oo ku doodaysa in uu sidaas sii go'aamiyey raadaamkii koowaad ka hor intii aanu dhiman. waxaana ay sanadkii 1828 sidaas ku noqotay boqoradii waddankaas iyo weliba gabadhii ugu horreysay ee dawladdaas ka talisa. isla markiibana waxa ay bilowday in ay gumaado qoyskii boqortooyada, iyadoo ugu horreysiisay wiilkii xilka loo diyaarinayay, kadibna xididada ayay u siibtay qoyskii. intii aanu odaygeedu dhiman, gabadhani 3 sano ee ugu dambeeyey waxa ay jeclayd nin ka mid ah madaxdii dawladda. isaga ayay gurigiisa tegi jirtay oo khamriga kusoo cabbi jirtay. xidhiidhkoodu markii uu 3 sano socdayna waxaa geeriyooday raadaankii koowaad oo ahaa odaygeedii, kaas oo aan war ka hayn xidhiidhka. 11 bilood geeridiisii kadibna waxaba ay dhashay wiil loo bixiyey raadaankii labaad. waxaa jirtay caado qadiimi ah taas oo ay dadkaasi aaminsanaayeen, waxaana ay ahayd in qofka laga shakiyo inuu dembi sameeyey iyo in kale la laqsiyo 3 digaagood hargahooda, kadibna laga daba liqsiyo midhaha geed sun ah oo taangiina la yidhaahdo. intaa kadibna waa laga hunqaacin jiray qofka, oo haddii dib uu u soo matago 3 harag oo caadi ah waxa ay aamini jireen inuu beri yahay. haddiise uu kala reebo ama iyada oo googo'an uu soo celiyo, waxa ay rumaysnaayeen inuu yahay dambiile. waxa kale oo ay aaminsanaayeen arrintani in ay tahay miisaan uu ilaahay ugu talagalay kala garashada dambiilaha iyo qofka berida ah. sidaas awgeed
gabadhani waxa ay ka dhigtay qorshaha nidaamka ay maxkamaduhu ku shaqeeyaan oo qof kasta sidaas ayaa loo liqsiin jiray laga soo bilaabo sanadii ay xilka la wareegtay ee 1828 waxa sanad walba arrintaas u dhiman jiray 3,000 oo qof hase yeeshee ee sanadii 1838 oo kaliya waxa sababtan u geeriyooday 100,000 oo qof gabadhan waxay noqotay kaligeed taliso madax adag oo dadka cadibta waxa ay ku qasbi jirtay in ay danta guud ka shaqeeyaan waxana ay isku dubariday ciidan khasab lagu abaabulay oo ka koobnaa 20,000 ilaa 30,000 oo askari kuwaas oo loo xil saaray in ay ballaariyaan xuduudaha dawladda oo ay wada gaarsiiyaan dhammaan jasiiradda waxana ay tani sababtay dagaalo daba dheeraaday iyo in ay dad fara badan ku leedeen colaadihii iyo darxumadii ka dhalatay hore waxa uu jiray heshiis ay boqoradii ka horeeyay ay la galeen Ingiriiska kaas oo u ogolaanayay in ay dugsiyo ay maamulaan oo diinta Kiristaanka ku fidiyaan ay wadankaas ka furtaan hase yeeshee ee gabadhan oo shisheeyaha aad u necbeedii heshiisyadii way laashay oo waxa ay degdeg albaabadii isugu dhufatay kaniisadihii iyo goobihii waxbarashada waxa kale oo ay wadankii sanad gudihii kaga firdhisay ajaanibtii oo dhan Faransiiska ayaana kamid ahaa dawladihii xiriirka loo jaray iyada oo bilowgii horeba ka dishay 20 qof oo isugu jira badmareeno aana iyo saraakiil sare intaas kuma aysan ekaane waxa dhacday in ay dadkii aaminsanaa diinta Kiristaanka ay kaadidoodii kala xugushubtay waxana ay amartay in la gumaado بريه دبنا أنت لصو أورورية أيها بلجين تري بورها دادير كدمنا وحلو أمر تري إن الدين تودا كان نقدان وهدي الديدان ولا جش الون تري وحين تاس دارد إن أي جبادة ندل ترتي عد كالسؤال معارض كل نقطة حكم كذا أما بحتى قف كالسؤال لا جش كيو دت كين تودا بدلنا يجو أن دم ببكلين أيها للقسين تري حركة يوم رها تانجينا سلوه بيا إن الدم ببكلين يا إن كله كدمنا إن تودي بناي سنت جيتين أي أودي من ترين يجو بريئة kuwa kalena waxa ay matagi jireen iyaga oo kala dhiman sidaas awgeed ayaa loogu aqoonsan jiray in ay dambi iyo qalad weyn sameeyeen dhibaatooyinka kale ee bulshada xilligaas ku habsatay waxa kamid ahaa xanuunada iyo dayaca uu maamulkeedu baday bulshada waxana ku leeday bulsho aad u badan dadkii wadankaas ku noolaa waqtigeedii waxa lagu qiyaasaa in ay ahaayeen 5 milyan oo qof waxana sababteeda u dhintay amaba iyadoo ay leysay dad tiradooda lagu qiyaasay 2 milyan iyo badh intooda badanna waxa ay dishay 6 sano ee u dhaxeeyay 1833 ilaa 1839 waxana ay dhimatay 16 August 1861 iyadoo oo bulshadii wadankaas ay ka hadheen 2 milyan iyo badh qof waxana ay ka talinaysay wadankaas 33 sano waxana ay ku dhimatay 83 jir Rana Fulana waxa ay noqotay mid kamid ah hogaamiyaashii ugu xumaa ee soo maray bulshada caalamka gaar ahaan qaaradda Afrika halkana waxa dabadeed qabtay inankeedii kaas oo isku dayay iyada oo noolba in uu inqilaabo laakiin si ay u suurtagal weyday